waxa uu 14 sano si khaldan ugu xidhnaa Guantanamo waana la jirdilay. nin u dhashay dalka Mauritania ayaa dacwad ku soogay Canada wuxuuna dalbanayaa lacag dhan $35 milyan oo magdhow ah. Maxamed Walad Salah oo u dhashay dalka Mauritania oo si khaldan loogu tuhunsanaa argagixisanimo isla markaana 14 sano ku xidhnaa xabsiga Guantanamo Bay ee dalka Cuba oo sheekadiisa lagu sheegay filimka guuleystay ee The Mauritanian ayaa gudbiyay dacwad ka dhan ah Canada sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Faransiisku Sabtidii Abriil 23 Maxamed Walad Salah oo 51 jir ah ayaa cadeeyay in macluumaad khaldan oo ay Canada ka samaysay muddadii uu sida joogtada u deganaa magaalada Montreal ay sababtay in la xiro. maxbuuskan hore waxa uu ka dalbanayaa magdhow dhan $35 milyan Canada isagoo sheegay in loo geystay jirdil iyo silic aan la soo koobi karin oo ay ka mid yihiin garaacis, hurdo la'aan, faraxumayn, hanjabaadil iyo waxyaalo kale. Maxamed Walad Salah oo u dhashay dalka Mauritania ayaa sheekadiisa ku qoray buug noqday kan loogu iibsiga badan yahay waxaana qisadiisa laga sameeyay filim muujinaya xaaladda adag ee lagu qabo saldhigga Mareykanka. ninkan ayaa lagu hayay xabsiga Guantanamo maxkamad la'aan intii u dhaxaysay 2002 ilaa 2016 waxaana laga soo xiray 2001 Mauritania waxaana lagu hayay xabsiyo ku yaala Jordan iyo Afghanistan ka hor inta aan loo gudbin Guantanamo. waxa uu ku tilmaamay buuggiisa dalxiiska adduunka ee jirdilka iyo ceebaynta halka mas'uuliyiinta Mareykanku ay ku eedeeyeen inuu ka tirsan yahay ururka Al-Qaacida iyo inuu xubin ka yahay unuga Hamburg ee Jarmalka oo lala xiriiriyay weeraradii 11 Sebtembar. sheekada maxbuuskii Mauritanianka ahaa Maxamed Walad Salah oo in ka badan 14 sano ku qaatay xabsiga Guantanamo Bay intii uu ku jiray xabsiga waxa uu la kulmay noocyada ugu xun ee jirdilka. qisada ninkan waxa laga jiray 2 filim midkood waxa lagu magacaabaa The Mauritanian waxaana uu soo baxay 2021 waxaana laga soo xigtay sheekada xasuus qorkiisa gaarka ah oo uu ku ururiyay buug lagu magacaabay Guantanamo Diaries xasuusihii Guantanamo. waxa soo saaray Kevin McDonald waxaana jilaya jilaaga Faransiiska ah ee asal ahaan ka soo jeeda Algeria Tahir Rahim oo ay weheliso aktarishada caanka ah ee reer Mareykan ee Jodie Foster. filimka labaad waa documentary Jarmal ah oo ciwaankiisu yahay oo ay agaasimeen Amerikaanka John Gatz iyo kaalihiisa Ben Hopkins. ujeedkiisu waxa uu ku saabsan yahay inuu baadigoob ugu jiro dadkii jirdilay intii ay socdeen baaritaanadu kuwaasoo uu doonayo inuu si foolka fool ah isu baro uguna yeedho inay koob shaaha la cabaan.